Casibadan lagu qabtay magaalada Hargeysa xuska maalinta kalkaalisooyinka adduunka 6 May oo ay soo abaabuleen ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Somaliland taasoo ay goobjoog ahaayeen bahda caafimaadka iyo kalkaalisooyinka dhammaanba ka howlgala xarumaha caafimaad ee gobolada Somaliland. waxaa madasha ugu horeyn ka hadashay gudoomiyaha ururka kalkaalisooyinka oo aad ugu boolistay ka soo qaybgalayaasha xafladan inay xil weyn iska saaraan daryeelka bukaanka ay u adeegaan iyadoo xustay inay habboon tahay in loo soo jeesto wax ka qabashada cudurrada aan faafin sida dhiigkarka iyo macaanka. Marwafosiya Ismaaciil waxay hambalyo u dirtay shaqaale weynaha kalkaalisooyinka Somaliland. gabagabadii waxaa halka ku guddoonsiisay shahaado sharaf wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Nimco Xuseen Qowdhan kuwaasoo ay sheegeen inay ku mutaysteen howlkarnimada ay ka geysteen cisbitaalada iyo xarumaha ay ka howlgalaan.